هذا ودن كان سؤال أفريقيا ما هو ودن كأني dalkeena ma waan ka nimid waa dal aan yaani dhibaatadii iyo dulmigii iyo dhibkii dhexdaanada ka dhacay darteed baan yaacnay oo adduunyada dhan u yaacnay dhulkana nimid waan isu nimid intaanadii halkan timid waxay rabaan inaan community Soomaaliya noqono oo hal qof oo gudoomiye aan yeelano magaaladii la arkabo dawladdan xuquuq ku yeelanayna horumar baan gaarina waa sida ummadaha kale yihiin hadda wadankan ummad kale oo muslimiin ah nooga soo horeeyay dadka Eeshiyaanka soo wadana degano horumarka ay gaareen maxaa u sababay ma arkaysid dhowr community ama jaaliyada dhowr oo Eeshiyan iska garab furay ma arkaysid isgarab orday markay yaani Soomaalidu tageen Yurub iyo Mareykan qolal arkay magaalay tagi community baa la sameeyay haye markay dawladdu soo dhamayso wax laga qoro oo la yiraahdo mid kale hadana inta ka furay kaasoo ma adigu maxaa community Soomaali kaana waa Soomaali kaasna maxaad kala tihiin maya de Soomaaliya wadanahay laakiin wax isku darsano dawladdu waa ku wareeraysaa ya marka waxba idin ma siin karnaa leeyahay anagu hal community Soomaaliya baa hoogalnahay kan wuxuu leeyahay ana Soomaali matalay kan wuxuu leeyahay ana Soomaali matalay saa wax ku helna marka way saa wax ku helna wixii aan gaari lahayn dawladda Kenya xuquuq badan baa laga helaa dawladda markay isku xiran yihiin dadku markay jaaliyad xoog noqdaan hadda fiir business baa sameeyeen horumar baa sameeyeen guriyaan iibsanay ganacsi ma leenahay horumar baan la tixgelin baan ku leeyahay xuquuqda markii loo noqdo laakiin waxaan xaqeena ku waayna 10 qof oo isgarab socdo markuu mid walba yiraahdo Soomaali matalay waa laga istaagay marka qof la siiyo waxa leeyahay hadaan kan siina kana dulmi ka galayna kana Soomaaliya kan adigu waxa matid maalday may way ka aamusayeen qalinkii waa iskar saaraya warqadii weligaa halkaan baan taagnaanayna qalinkii yaa qaaday dawaasu kaana kor saarayay yaa horta soo heshiiya yaa noo taalo dhibaatada annaga soo sababay noolale dibka aan iska deeno aan garanno magaaladan ama wadankan dad badan oo Soomaaliya ku nool dhibaato badan baa ka jirto dhibaatada badan oo ka jirta waxa u sababayo iskhilaafka Soomaalida u sababay hadaan anagu iskhilaafsanayn wax badan baan ka badbaadi lahayn laana dad isku xiran oo isku mida oo dhinac u wada socdo oo hal beel ka fikirayo hadaan nahay hanadaamaha yeelan lahayn amnigan xataa samaysan lahayn dawladda la xiriir lahayn xuquuq baan yeelan lahayn Soomaa xuquuq baan yeelan waa sida lagu helo sida xuquuqda lagu helo ilmaheena badbaadayo wax barashaan helaynaa horumar baan helaynaa waxbaan qabanaynaa dadku markay isku duubayeen wax qaba laakiin waxeenii oo dhan dhaqaalaheeni codkeeni wax qabadkeeni jiritaankeeni cadadkeeni waxoo dhan waxa dhantaalayo khilaafka nagu dhacay ilaahay ha naga saaro subhanahu wa ta'ala walaalnimada muslim islaamnimada Allah na garasiyo walaalnimada khaaska ehelnimada aan leenahay Allah na garasiyo markasto qof kasto culimo iyo qof kasto aqli leh uu ka hadla laakiin famin ayna al-amal ya qaadanaya ya qaadanaya wa ognahay qof la arko aw halka fadhiyo hadii hadal la yiraahdo sida uu sheegay dibkaas aan hayo leey hadii aan ka baxno laakiin aan isku raacayno aan ka baxno inaan isku raacno laga ma yaab marka tawfiiq Allah na waafajiyo